السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكان حق السلام يا دمان برشيد الصومالية ميل كasta تكون adduunka daafaheeda horta wad garan kartaan kulbaanahan ba hadal leegi sugeena hadlo waan u jeedaa inaan maanta hadlay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa waxaan joogaa magaalada Dubai aniga walaalkii Subeer oo isaguna hadda iga duubay kamarada hadalka yaan idin badanin maalintii dhaweetay ahayd sabtida ayaan waxaan ku lahaa show magaalada Hargeysa aniga iyo walaalkii DJ Subeer guest listigan wada aragtay magac qorna fanaanada Hargeysa ku qoray waxa dhacday showgeenu baaqday wuxuuna baaqday runtii ma ahayn duhurkii ma ahayn maalin kadib wuxuu baaqday the last 1 hour aniga la isoo dooni lahaa oo aan tagi lahaa showga already DJ Subeer oo stage-kii taagan yahay shicibkiina intay qaar soo galeen qaarna irida taagan yihiin ay soo galayaan ayaa square meesha waxa ka qabtay niman hubaysan oo ciidan ah oo xabado wata ayaa Subeer iyo dhalinyaradii kamarada haystay ee duubi lahaa showgii ayaa square laga qaaday oo xabadii lagu lagu taageeray showkan waa cancel mana dhici doono waxay kadib arintii sidii bay ku dhacday inay baaqato markii la ogaaday in la yiri way ah showgu joojiseen waxa la yiri showga haddaad rabtaan idinku waad sii wadan kartaan haddaad adiga DJ Subeer ah iyo fanaaniinta meesha ku qoran ee kamid yihiin xidigaha geeska kale iguma qornay waad sii wadan kartaan laakiin nasteexa in haddii soo gasho xarig baan ugu dareynaa iska daa show edegtaa alxamdulillaah rabbil caalamiin qadartaas ma dhicin waxaan idin sheegayaa Hargeysa waa magaaladii fanku ka asaasmay saa wada garanaysan inta fanaan Soomaali ku jirta ee qiimo leh ee ma taqaanaa in wada dhageysano waa bariyay kulli meeshay ka soo asaasmeen abwaanin ka soo baxeen history bay leedahay qadiimo idinka ugu magac dareba hoygii fanka in Hargeysa tahay alxamdulillaah waxaan rabinaa historygaas mid kamid ah noqdo laakiin runtii warqad ka timi xilli madaxtooyada uu soo qoray wasiirka diinta iyo awqaafta qaabilsan ayaa warqadaas ku soo daawacay inaan show ka dhigi karin haddaan ahay shaqsiga nasteexo ah sababtan iyada isaga la weydiinayaa maxay idinla tahay idinka fankii nasteexo markii la weydiiyay arrintii la sii wareystay wuxuu yidhi nasteexa fankeeda waxa weeye waa xaaraan heesaha ay qaada xaaraana heesahayga hadday xaaraan yihiin dee kolba heesa xalaala miyay qaadaan fanaaniinta kale ma nashiida ay qaadaan maxay sameeyaan I don't know kolba idinka taas ka jawaabaya tan labaad aan rabo inaan ku daro waxay tahay shicibka heer Hargeysa ee habeenkii isu soo diyaariyay showgayga inay ka qayb qaataan inta dhammaan fankayga xiisaysa waxa in leeyahay waan ka xumahay habeenkii qasaarada iyo gabdhihii timihii soo hagaagsaday soo labistay aniga laftarkayga timihii soo hagaagsaday waan ka xumahay habeenkii wallahi si weyn buu dagaalameen waan idinka mahadcelinayaa dhammaantiin runtii marka waa idin soo sheeka dhaafay haddii calashaan maanta qalabka halka ka dhacay qayb dadkii ka ahaa la sheegana fanaaniinta ka mid ahaa magaalada deganaa iyagu ku sugnaa anna aan iyaga marti u ahaa waayo fanaanku meesha uu degan yahay marka loogu yimaado fanaanka kale waa inuu soo dhaweeyaa laakiin anigu fan lamaan kulmine waxaan la kulmay tan dariiq kala maraya sheeko kala watan baan la kulmay halkaas laygama sii harin markii la damcay habeenkii in aniga dadkii ii yimaadeen wiilashii TV-yadii iyo kameramaanyaashii damcay inay aniga wareystaan balay hadday hadasho waa xarig oo waliba meeshii la yiri waa xarig hotelkan deganaan isku weer laga soo qabtay maalintii ku xigtay alxamdulillaah rabbil caalamiin tigid baa aniga ii go'naa mar walba oo ka soo baxay wadanka tigidkii ii go'naa maalinta Norway ka soo baxayaan ku soo baxay shalay baa ii go'naa aeroboortka markaa isir ka soo baxna meeshii ayaa la igu qabsaday oo haddayna ahayn waliba aan u mahadcelinayo dhalinyarada ka shaqeysa aeroboortka oo badigood u badnaa dad fankayga taageera markay arkeen baasaboorkayga iyo xalay arrintii dhacday cidna iyadoo igala hadlin baa qolley geliyay waxaa loogu yiraahday meeshaan ka timi waa xagee meeshaan ka imaan boosaasan ka imid oo soo maray marka dhalinyaradiiba ayaa fankayga taageertay oo ma taqaanaa yiri nasteexa la sii daayo saas darteed baan ku soo baxay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan salaamayaa dhammaantiin waan caafimaad qabaa anu waan jeclahay shicibkayga meel walba joogan waan taageersanahay waxaan anu khalad saari maayo amar alle ku dhacday waxani ma faantay waxaan leeyahay inta xanuunsan Allah caafiyo
انت حنوصن الله عافية بس بان لا هاي أنا وعاف ما طبعا دبنتين واحد كتير ولكن ضمن ماذا يدنتين بوجانا ماشي أي عكتنا دقيسان دنتين أنا ولكن نضيف هيدي هاتو انت صنبا كتير وانا كحو ماي دمانتين انتي هبين كاي صوت ديار كرسا مرة بعدين كنال قلنيا سويرنا سيدو كلو حيود الله كرالي هذا دمان فنانينتي أنا أيربورك بسودو ويسي وكمدي هاي سحرديد بيروف يا دمان دي انتان الله وين قلبي انكو هاي أولي وحين اللي وان ما هتسنتهين thank you so much